waxaad aragtaa qof ceeboobay gabar ha ahaata ama wiil ha ahaado saasoo aad tahay waa la yaabtaa laakiin weli ma isweydiisay halka qof ee ceeboobay inta kun oo qof cirsanaysa oo dhibaatada sii ballaarinayso weli ma isweydiisay sababta ka dambaysa waxaa laga yaabaa qofku markuu ceeboobo in dad tiro badan aad aragtid oo barnaamijkaasi sii wadwadaya aanan daboolaynin horta bulshada Soomaaliyeed qaabka hadda ku socota haddii ku sii socoto waxa ay lumi doontaa heebta ay leedahay qofku identity-giisa hadduu lumiyane qofku uu yahay sida uu yahay qaabka uu nool yahay magaca uu leeyahay waxyaabahaas oo dhan waa lumiyaan marka dambana wuxuu noqonayaa qof aan dhul lahayn qof aan magac lahayn qof aan muuqaal lahayn haddana waxay ku socotaa qofka Soomaali laguma tilmaamayo kow marka qofka la wareysanayo ama la arkayo muuqiisa la arkayo waxa koowaad ee la weydiinaya waxa ay tahay gobolkee ka timid baa leeyahay qabiilkee tahay ku xigta waagi hore 20 sano ka horna qofka markuu af Soomaali ku hadlaba waa lagu farxi jiray haddaba qodobkaasi kuma sii dheeraanayo laakiin waxaan ku dheeraanayaa waxa ay tahay dadku maxay u raadiyaan dadka kala qeybahooda xanuun waxaa jira ADHS la yiraahdo Soomaalidana 80% xanuunkaasi way qabtaa wiilal ha ahaadaan ama gabdhaha ha ahaadaan isla xanuunkaasi calaamado ayuu leeyahay sida xanuunada kale ee calaamado u leeyihiin ku tiramaya calaamadaha uu leeyahay laakiin hal calaamado kamid ah ayaan ku sheegayaa waanad fahmi doontaa calaamadahaasi waxa kamid ah qofku inuusan akhlaaq lahayn xanuunkaasi akhlaaqda ayaa ka lumayso qofku akhlaaqda haday ka luntana waxa ka lumaya anshaxa qofka uu lahaa waxa uu doono ayuu ku dhaqmaya wax walba oo maskaxdiisa ku soo dhaca ayuu ku dhaqaaqaya wana sababta keenta markaad u fiirsatid ragga Soomaaliyeed badanaa waxa ay raadinayaan ceebaha dumarka xanuunka ADHS ka bay qabaan dumarkana badanaa waxa ay ku dadaalayaan diinta inay caayaan diinta inay ka baxaan nabigana ay afrigaadiyaan sababtana waxa ay tahay qofku haduusan akhlaaq lahayn anshax lahayn wax walba oo ku soo dhaca maskaxdiisa uu soo gudbinaya xanuunkan qofku markuu qabo waxa soo wajahaya xaalad caafimaad xumo markay soo wajahdo waxa imaanaysa marka san kala garan waxa damiirkiisa ay siinayso waxana dhacaysa inuu mar walba ku dadaalo inuu raadiyo wax xun waana tan sababta qof Soomaaliyeed waxaad arkaysaa flow gareynaya 20,000 oo qof oo ka badan akoonkiisa markaa fiirsid 20,000 oo qof waa kaligiis wuxuu flow gareeyaa 20,000 oo qof sababtana waxay tahay inta wuxuu raadinayaa xog buu raadinayaa xogtaasi oo ah intee ceeb ka heshaa sidee wax ku ogaataa isla xanuunkaasi wuxuu sii sababayaa xanuunada maskaxda ku dhaca waxa dhacaysa qofku hurdada inay ka tagto sababtoo ah wuxuu ka baqayaa hurdada wuxuu uga tagaysaa habeenkaas oo dhan wuxuu u soo jeedayaa aysan waxba ku dhaafin xanuun baa hayo ogow qofka haddii uu ka baqayaa aysan waxba ku dhaafin leef walba taagan yahay video walba daawanaya Telegramka taagan yahay xanuun maskaxiyana haysta wayna u badan tahay u fiirsa marka gabdhaha feminismka u dooda iyo gabdhaha ajnabiga guursada badankood ma aha qaarkood ajnabi inaa guursatid wiil ahow ama gabar ahow waa calaf adiga xaq rabbi kaaga qornaa waxaad adiga sababi kartid ma aha laakiin dhaqan xumo inaad ku dhaqantid waa caafimaad xumo ku haysataa halka qof ee ceeboobay hala yaabin ee waxa aad la yaabtaa bulshadaan tirada badan ee ceebtooda raadinaysa gabar haday dhibaato ka dhacdo raggi baa ordaya ragga haday dhibaato ka dhacdo dumarkii baa ordaya saasa la isku mandhaafay qaabka haday ku soo socotana waxa dhacaysa marka dambe in la kala dido haddaba haddii aad maanta tahay dhalinyarada aan waxba soo bandhigin laakiin daawada caafimaadkaaga ka fikir maskaxdaada ka fikir dadka xogta ka qaadanaysid ha haadan kuwa maskaxdaada korinaya laakiin mar walba qof ceeb raadinaya oo xanuun haya haddii aad ku xiran tahay marka dambe waad xanuunsanaysaa maskaxiyan baad u xanuunsanaysaa hadda waxaa la iska dhacdhacsiyaa qofka haddii diinta ka baxo qofka qaniis hadduu noqdo qof ajnabi hadduu guursado qabiil gooniyeed oo Soomaaliyeed baa dusha loo saaraya isla qabiilkaasi shiiq baa ka dhasha macallin baa ka dhasha arday baa ka dhasha mas'uul baa ka dhasha saasoo ay tahay laguma ixtiraamayo oo lama dhahayo war qabiilkaasi shiiq hebel baa ka dhashay ama siyaasigaas wanaagsan baa ka dhashay yeynan qofkaani shaydaanka adduunka u macaaneeyay ama adduunka u qorxiyay yeynan qabiilka tirada badan ee cid walba ka dhalatay yeynan u aflagaadeynin waxaan aad ula siyaabana waxa ay tahay maanta haddii uu qof ajnabiya qof Soomaaliyeed uu dhibaato u geysto wiil ha ahaado ama gabar ha ahaado haddii wiil Soomaaliyeed dhibaato loo geysto ama gabar Soomaaliyeed dhibaato loo geysto isla ajnabigii baa la wada flow gareynaya sababta loo flow gareynaya ma taqaana dhamaantood ADHS bay wada qabaan way wada xanuunsan yihiin inta waxa ay raadinayaan xog inay helaan xogtaas oo xog ceeb ah hadda ka waran qofka maskaxdiisa ay siinayso inuu qof la dhibaateynayo ama qaawan inuu rabo inuu arko ama wiil la dhibaateynayo oo la bahdilaya inuu daawado qof jecel ka waran haddii uu damiirkaaga ku siinaya inaad aragtid wiil la dhibaateynaya ama gabar la fadeexeynayo waad xanuunsantahay intaa faham
ama wuu xanuunsan yahay qofka intaa raadinaya ee u fulugoreynaya inuu bal arko gabar Soomaaliyeed oo la dhibaataynaya ama wiil Soomaaliyeed oo dhulka lagu jiidaya haddii aad qof kale u fulugoreynaysid xanuun baa ku haya halka ila faham. Assalaamu calaykum.